إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سيدي الشيخ محمود ماركوني حفظه الله قارئينه وشيغي يا سيدي الشيخ محمد حسين بارك الله فيه وأطال الله في عمري وشيغي وقديسو موضوعا جعلنا وحكاية تابتو وحوية تربية الأولاد في الإسلام عرورت يا سيدي لو كورين لها يوحو إسلامك كقبو أما بالأصح توجيهات كإسلامي يكو صابسا كوبعيستا يكوريستا عرورتا وحواجب أمركو هوري إنو والدكو أوغادو مسؤولية تجاه أبنائي مسؤولية والدك عرورتا كسارا يوحي لقفي ليو إنو مركو هورو والدكو أوغادو عربت وحي هذا فاقد الشيء لا يعطيه قفان وحبا هايساني وحبا معما عيدكس كمسو كردين كرو وحبا ما أنفعي كرو قفكنا هدو جاهل كي هاي مسؤولية دي الله صاري يكو صاب سنايد عرورتا وينو واحد ضريم وينو وحبا ما هقاتشينيو قد بدن با وحي هايستان ومضمر بدن با وحي هايستان هو ينمدو إنا تهي الماء أور لغو قاضو ولا أمولو ناس لنوشيو حاجة ديسة oo qura inay ku koobanta inta iyo cunto si mariyana u xil una mayd nadiifiha cararo marka iskuulka loo diro waxay ilaawaysa hooyadaasi marka waxay jaahilad ka tahay dowr al-umuma dowrkii hooyanimada ay jaahilad ka tahay oo waxay ka tahay jaahilad wixii laga filayay gabadh walo ilaahay sameeyaba intooda badan carruur way dhali karaan naasna way nuujin karaan qada iyo quraac iyo cashana way u soo dhigi karaan mariyahana way u maydhi karaan iskuulkana way u heeriyen karaan intaas way dhici kartaa laakiin hooyada dhabki waa hooyada ka si fakirta arrimata ka shisheeya waayo nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu inoo sheegay inaynu qof walba uu mas'uul yahay kama fi sahih al-bukhari wa muslim wuxuu nabigu sallallahu alayhi wa sallam kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati qof walba mas'uuliyad ba saaran laga wareysanayo yawm al-qiyamah ar-rajulu raa'in fi ahli bayti wa huwa mas'uulun 'an ninka waxa la saaray mas'uuliyadda reerka yawm al-qiyamah waa laga wareysanaya gabadhan xaaskana waxa la saaray mas'uuliyadda guriga carruurta tarbiyadooda ayaa la saaray iyo wixii guriga soo gala waana laga wareysanay yawm al-qiyaamah
wuxuu nebigu inoogu daray intaa inuu ilmahan lagu siiyey ilmahaad aad haysataa inuu yahay ammaano waalidkana laga filayo ammaanada inay soo celiyaan ilaahayna qur'aanka subxaanahu wa tacaala ahamiyadda ammaanada wuu kaga hadlay kumana noqonaya kamana taataabani wax badan nebigu wuxuu inoo sheegay inantan yara ku ag fadhida ama ilmahan yara ku ag fadhiya inanka yara ku ag fadhiya markuu dhashay wuxuu ku dhashay cala alfitra yani wuxuu ku dhashay ilmahaasi cala alfitra fitrada waa maxay waa siduu ilaahay u sameeyo waa ilmo daahira waa ilmo aan been aqoonin oo aan khiyaamo aqoonin oo aan wax xadis aqoonin oo wax ceeb aan lahayn lidalika nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kullu mawluud ilmo walo dhashaaba wuxuu ku dhashaa cala alfitra fitradu waa maxay waa fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam sheegay fa abawaa hooyada iyo aabbaha ayaa ilmaha caqiidadiisa ka mas-uula yuhawidaan aw yunasiraan aw yumajisaan ilmaha waalidkunbaa ka soo saari kara yuhuudi iyo kristan iyo majuusi iyo wax kale waalidka ka soo saari kara beenaale waalidka ka soo saari kara mid khiyaamada yaqaana mid waxada waa waalidka iyo bii-adunbaa ka soo saari karta waayo ilmahan markii inala siiyey ilmo daahira oo nadiifa oo barii'a ayuu ahaa ilmo aan ceeb lahayn waxaana lagaa filayaa ammaanadan lagu saaray ina yowma alqiyaamaha sidii lagugu dhiibay aada u gudbisid oo lagaaga waraysto waxaan leeyahay marka waxaa istinaa ah oo xaaladda aan ka hadlayo ka disan waxaa jirta duruuf marmar baa laga yaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kugu ibtilayo ilmo aan mu'min ahayn wadiiqad jeexday iyo wadada jeexday iyo dariiqad qaadatay aan qaadanaynin laga yaaba waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa asagaa yukhrij alxaya min almayit wa yukhrij almayita min alxay waxaa tusaale taa inoo ah waalid ilaahay subxaanahu wa tacaala ibtileeyey waxaa qur-aanka inaloogu sheegay nebi nuux calayhi salaatu wasalaam nebi nuux ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu soo diray wuxuu u soo dirayna inuu dadka hanuuniyo 950 sannadoodna dadku ku akhriyaya ilaahay aamina walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi falabitha fiihim 1000 sana ilaa 50 caam ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi nuux buu soo diray dad buu u soo diray 950 sannadood ayuu wuxuu ku akhriyayey waxaanu kaga bilaabayay qoyskiisa waayo wuxuu fahamsanaa ahamiyadda qoysku uu leeyahay wuxuu ogaa inay mas-uuliyadiisu gurigiisa ay ka bilaabmayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga sheekeeyey nebi nuux iyo inan uu dhalayo caasiya waa xaala istithnaa'iya waa laga yaabaa inay nagu dhacdo waa laga yaabaa adigoo qof quman oo saalixada oo ninkaagu nin saalixa uu yahay oo qoys wanaagsan ka soo jeeda oo ilaahay ka cabsanaya oo nebiga sala allahu calayhi wasalam sunnadiisa raacaya inuu ilaahay kugu ibtileeye mid yar siduu nebi nuuxba uu ibtileeyey ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay inuu nebi nuux markii uu doonidii uu dhammeeyey inankiisii caasiga ahaa aanu ka quusanin qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi nebi nuux yaa bunay irkab macana walaa takun maca alkaafiriin aabbo markabka doonida soo raaco gaalada ha la joogin ha ka mid noqonin yarkii yara wuxuu ugu jawaabay qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimuni min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illahi ila man raxim waxaala baynahuma almawj fakana min almughraqiin ilaahay wuxuu inoogu sheegay qur-aanka inuu nebi nuux ku yidhi inankiisa aabba soo kor doonida yarkiina uu yidhi may uma baahni inaan soo koro doonidaade buurta ayaan kaga gabanaya mawjadahan iyo biyahan soo socda ilaahay wuxuu yidhi waxaala baynahuma almawj fakana min almughraqiin fakana
وحها إلهي سبحانه وتعالى كيري ضدك إلهي من المغرقينها بيو اللقين. نبي نوح عليه الصلاة والسلام ووالد كمو قصن إلمهيسي إلهي سبحانه وتعالى وتوجهي ونادى نوح رب نوح بإلهي الله فقال ربي إن ابني من أهلي إلهي وإن كيبو تريرك وقوسي يكتر سيئي وهي إلهي قرآنك محوكل احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك دون إذا وحا صارت وح ولو لوك صار لم يددي كسار يا أهل كاغا نوح عليه الصلاة والسلام وحيري إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وحلن قاضي وعد كاغو بلان تادنا وبلان حقه أظن أحكم الحاكمين بعد إلهي وحقو جوابه يا نوح إنه ليس من أهل إنه عمل غير الصالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وحنقول هذا مركة إلهي وحقو ابتلين كرا لكن حالة استثناء كما حل لنا وحين كحل لنا حالة عادية أو qoys walo muslimo uu ku noolaan karo marka ugu horeysa mas'uuliyadda ka saaran ilmuhu waa maxay hadaad gabar tahay hadaad ruux muslimada aad tahay mas'uuliyadda ilmaha ka saaran ugu horeysa waxa weeye inaad ilmahaaga u doontid aabbo quman gabadha habeenkii dhawtan darisan galay waxaan ku iri ina ragga waxa mas'uuliyadooda waajibku ilmuhu ku leeyahay waxa weeye inuu u doono hooyo saalixada gabadhana waxa laga doonayaa inay u doonto ilmahay dhali doonto intaanay dhalin inay u doonto ay u doorato aabbo saalixa aabbo masaajidka geeya aabbo qudwad u noqda aabbo asagu gacanta qabta aabbo raganimada bara aabbo cibaadada bara aabbo geesinimada bara aabbo karamnimada iyo karimnimada bara waa inay doorataa waa inay u doorataa ilmahay dhali doonto aabbo saalixa laga yaabaa dumar badan dumarkan marwooyinka niqaabka iyo jilbaabka in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya kama hadlayo laakiin maanta dumar badani inay door bidaan intay arkaan nin saalixa inay yidhaahdaan kani ama wax ma haysto ama dumar kaluu leeyahay ama xaalad kalaa jirtay anigu waxaan doonayaa mid caynkaasa ay dooratay ku doorato ama gabadh kale hore uma qabo ama xoolo yar buu haysta ama mansab buu haysta ay markaa ka boodo xaqi ilmaheedu uu ku lahaan lahaa taasina waxa weeye dulm aad dulmiday ilmaha dhali doontid ilaahayna yowma alqiyaamaha uu kaa waraysanaya waa khiyaar baa lagu siiyey option baa lagu siiyey hooyada markaa waa inay u doorataa rajulun saalix nin ilaahay ka cabsanaya sharcina waynu ka hadalnay salaaxa arajul oo saddex baynu ku sheegnay kow salaaxatu waa inuu salaaxun bidaati asaga iyo inuu ilaahay ta u dhaxaysa waxaynu soo hadal qaadnay akhlaaqdiisa waxaynu soo hadal qaadnay qawaamadiisa wixii aynu shalay ka hadlinay oo dhan waa inay ruuxa dumarka markay doonayso nin guursato waa inay eegtaa inta haddii aad leedahay waa lay qabaa caruura ugu handhalay odayguna meelahaasu ka yaraa soo qalqayilaa siyaasadana faruhu kula jira meelahaasu ka soo qowqowleeyaayo maqaaxidaha kama dhammaado guriga soo hoyana waan ka kari la'ay maxaa xala imika waan ku jiraa musiibadii maxaa xala waxaa xala inaad ku dadaashid imika inaad hagaajisid intaad hagaajin karaysid waxaa xala markii hore qalad baad ku dhacday inaad horta ilaahay u toobad keentid waayo ilmahaaga waad dulmiday aabbo xun baad u keentay aabbo aanu berrito ku faanin baad u keentay aabbo aan tacliin iyo iimaan iyo qudwad iyo salaad iyo qiyaam iyo xaj iyo midna mala ahayn baad u keentay waayo ilmuhu aabbihii buu eegtaa nin baa waxaa la yidhi nin min asalafkiiba raximahullah nin saalixa buu ahaa waxaan kutusayaa ilmahan kutusaya taaiirku aabbuhu ku leeyahay nin saalixa buu ahaa inankiisii buu aabbo kaalay wuu u yimi inanka waa inan yar oo asaguna adab leh oo aabbihii jecel inuu ku daydo qaala man qudwatuk war yaa kuu tusaale ah yaad daba raacdaa yaad raad raacdaa yaad doonaysa inaad sidiisa noqotid
inanku wuxuu arkay aabihii buu arkay oo masaajidka aan ka soo baxaynin oo quraanka ilaahay xafidsan oo aaminsan oo ku amal falaya oo ummadii wax baraya oo asagoo sheekha oo asagoo nin saalixa marka qafa qala ya abati ant adiga i qudwada buu yiri adiga ayaa i qudwada odaygu wuu xanaaqo wuxuu yiri khibta wa khasita buu yiri waad hoogto waad balanbashay khasaare tarbiyadeedu waa khasaare buu waa ku khasaare wuxuu yiri أردت أن أكون مثل علي بن أبي طالب فانظر إلى حالي odaygu wuu calacalo wuxuu yiri waxaan doonayay inaan noqdo sidii Ali bin Abi Talib halkan maraya eeg buule bilaa macnaanay marka waxaan uga jeedaa inanku aabihii buu eeganaya aabihii baa qudwad u ah waayo ilmuhu intuu yar yahay hooyadu gacanta ku qaban kartaa way joojin kartaa hadhow markuu kuray uu noqdo uu nin ismoodo uu adiga kaa farabaxo yaa soo qabanaya yaa seetaynaya yaa gacanta ku dhagaya waa aabbaha laakiin hadduu aabbihii sigaar cabayo uu qayilayo uu meelaha ka towtow leeyahay uu ka hadlayo arrimo laa yusmin walaa yugni min juuc laa yanfacu fi dunya walaa fi laakhira haddii cayn ka noqoto dulmiga ilmaha iyo lumistiisa hooyada ka mas-uula waayo ayada ninka xun u doortay dumara is ilaaliya haddii ay noqoto inaad ku jirtidna isdaba qabta oo ku dadaala inaad ninka hagaajisid waayo ilmuhu ishii wax ku barta tarbiyada labaad talagaada laga doonaya waxa weeye markaad aabbo wanaagsan u dooratid talabaada laga doonaya waxa weeye inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala tadarruc iyo duco aad ula timaadid ilaahayow ilmahan dhali doono maaha ilmahan dhalay oo qura kaan dhali doono ilaahayow ii barake ilaahayow ii ilaali ilaahayow saalix ka dhig yani waa garanaysaan maryam hooyadeed imra'ati cimraan maxay tiri qaalat rabbi inii nadartu laka maa fii baطni muxarar fataqabal min ilaahay bay weydiisanaysaa hadda uur bay sidaa ilaahayow waxaanan sido adigan ku siiyey iga aqbal ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu ka aqbalay nebi ibraahim calayhi الsalaatu wassalaam ilaahay wuu imtixaanay imtixaankiibuu ka soo baxay wuu baasay ilaahay baa ku yidhi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi inii jaaciluka linnaasi imaama ibraahimow dadka ayaad imaam u noqonaysaa qudwad baad u noqonaysaa tusaalaad u noqonaysaa wuxuu nebi ibraahim raacsaday qaala wamin duriyatii ilaahayow anigoo qurayaan qudwad noqoninan tusaale u noqonin ummadee ilaahayow caruurtaydana ka dhig mid qaar noqda imaamo ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay inuu asago iyo ilmihiisa inuu ducada baray ay ducaysan jireen maray kacbada dhisayeen ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi waid yarfacu ibraahiimu qawaacida min albeyti wa ismaaciil waxay dhisayaan kacbadii bay dhisayaan maxay leeyihiin waxay leeyihiin rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim ilaahayow naga aqbal yaa baray ducada ismaaciil dee aabihii baa baray ilaahay subxaanahu wa tacaala suurati maryam ducadii iyo dadaalkii ibraahim uu ismaaciil uu ku dadaalay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tusaya siduu nebi ismaaciil noqday ilahay wuxuu wadkur fi lkitaabi ismaaciil inahu kana saadiqa alwacdi wa kana rasuula nabiya wa kana ya'muru ahlahu biالsalaati wالzakaah wa kana cinda rabbihim mardiya yani waxay ku tusaysaa waxaasoo dhani inuu ducadu ay daruuri tahay nebi ibraahim calayhi الsalaatu wassalaam markuu ismaaciil oo yeer meesha kaga tegey muxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu yidhi ilaahayow caruurtayda waxaan kaga tegay meel aan dhiri ka bixin ilaahayow salaada ha tukadaan ilaahayow dad u soo dir waxna sii thamaraadkan wax ka sii yaa rab yani waa duco uu nebi ibraahim calayhi الsalaatu wassalaam ilmihiisa ugu ducaynayey waxaan leeyahay inkastoo waqtigu isgurayo uu ordayo waqtigii laga qabtana ii hadhay 10 minut waxaan jecelahay inaan wax ka yara taataabto masaa'il ku saabsan tarbiyadda ilmaha kow
intii markii labadii noqdood aan soo dhaafo hooyada waxa looga baahan yahay inay ilmaha ku tarbiyeyso tarbiya iimaaniya tarbiya cilmiya ma aha cilmigu maaha waxa la urursado oo maskaxda lagu hayo oo la xafidsanaado oo aan lagu camal falin maaha diinteenu cilmigu waa camal ilmihina camal ma keenayo oo lama imanayo ilaa iimaankiisa aad kobcisid ilmuhu waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tallaalada waa inuu ilaahay ku xidhnaadaa waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aaminsan yahay iimaanan yaqiinan asagoo yar tarbiya iimaaniya ina ilmaha lagu hooyada ay ku koriso waa lagama maarmaan waxaan leeyahay tarbiya iimaaniya waxa weeye kow ilmuhu warta waa ilaahay inuu jeclaado subxaanahu wa tacaala ilaahay waa ina ilmaha la jeclaysiyo ina la nacbaysiyo ama lagaga cabsiyo ilaahay maaha innaka waxa caado iyo dhaqan inoo ah inaynu ilaahay ilmaha ku khuuqino yani ilmaha maxaa lagu khuuqiyaa wuxuu ka cabsado haddaad waxaa samaysay ilaahay baa ku cadaabaya cadaabtaad galaysa been baad sheegtay cadaabtii baad gashay ilmihii yara waad aastayba waa qalad waa tarbiyada ugu xun ilmaha waa inuu ilaahay jeclaada waa inaad ilaahay ilmaha ku tidhaahdaa haddii aad run sheegtid ilaahay wuu ku jeclaanaya jannaduu ku gelinaya wuu ku dambi dhaafaya haddii aad waxaa samey haddaad tukatid ilaahay waxaasuu ku siinaya intaasoo dhan buu ku siinaya haddii aad u baahatid cid ilaahay baa lagu nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi ibni cabbaas oo ilmo yara hadda waa ilmo yaroo biyo ah ayuu dameertii ama baqladii nebigu fuushanaa buu xaggiisa dambe saaray waa ilmo yar muxuu yidhi qaala yaa ghulaam inii ucallimuka kalimaat ixfad allaha yaxfadk wuxuu ihi inankow ilmo yarow kelmadaan ku baraya bal u fiirso tarbiyadda nebiga sala allahu calayhi wasalam muu ku odhan ilaahay wuu ku cadaabaya ma wuxuu yidhi kelmadaan ku baraya ilaahay ilaali ilaahayna wuu ku ilaalinayaa ilaahay ilaali ilaahayna wuu ku ilaalinayaa nebigu markaa sala allahu calayhi wasalam ciqaab ilaahay ilmaha muu tusin cadaab muu tusin cabsi muu tusin rajo ayuu ilmaha geliyey wuxuu ilmahani rajaynayaa inuu ilaahay u dambi dhaafo hadduu ilaahay xuduudkiisa ilaaliyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala tajiduhu tujaahak buu yidhi meeshaad ilaahay uga baahan tahay ilaahay baa kula jooga low jitamac hadday ummaddu oo dhani is ururisa inay wax kugu sameeyaan ama ku anfacaan waxa ilaahay ku ogolaan waxba kusoo gaari maayaan ilmihii caqiidadiisii ilaahay baa ku xidhan yihin في صحيح البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر محوكو يري والمير قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي لبدا قربو يقبت والمير أدو هذا المير أرتيد محاد أوران لهاي اسكول كإلالي حساب تبرو بيولوجي كيمستري تاريخ حفظ مع نقو نين دختران نقو نين انجينير نقو نين سياق وحبا أوران لهاي لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه رقربه قبطي سدو علمه أركو النبي ايغو فقال يا ابن عمر ايغو فيرسو هذا هو المير والشلا يعني لنا وكو المير شقنا هينين وحول كن في الدنيا كأنك غريب الدون كان سيدي مرتضى أوكله ولما عامل أو عابر السبيل أما نسافر كتيرة كن في الدنيا كأنك غريب والمير وحد أرس أوران الله ترى النبي محمد محمد حيابك لو بشيء جواي ومستقبل كيسة أنفعه تن محك فضل بلنبا نبي صلى الله عليه وسلم المير آخره الدنيا كسو صاري آخر أيو صري قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وحوحك سي النبي صلى الله عبد الله بن عمر عفوا وحورنشري إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء هدي على عيد الصوب بحضه هالسجن إلى أنت دعي سعد عيده هدي على عيد دعنا هالسجن إلى أنت الصوب بحث وشدد ومحي laga yaabaa inaad dhimatid yaa baray waxaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa looga baahan yahay markaa hooyadu iyo waalidku inay intaa ilmaha inay baraan 6 mirir baa ii hadhay intii lay qabtay waxaa kale jira oo laga doonayaa waalidka hooyadu
inay ilmaha ay siiso ay wax ku barto diinta ay ku barto usluub alqasas yani sheekooyinka ilmaha waxaa lagu baraa iimaankiisa lagu kobciyaa waxaa lagu kordhiyaa sheekooyinka yani qur-aanku 70% marka la qiyaaso ama in ka yar waa qisas waa reer bani israa'iil 170 iyo church ama 160 goor ayuu ilaahay qur-aanka ka hadlay muuse qisati yuusuf qisati ayuub qisati ismaaciil wax walba qur-aanka waa laga hadlay waayo qasasku sheekooyinku waa waxay carruurtu wax ku xasuustaan marka min baabi tarbiya waxa laga doonaya inaad ilmahaaga aad sheekooyin wax ku bartid sheekooyinkii saxaabada radiyallahu anhu nabiga aad kaga bilowdid sallallahu alayhi wa sallam a'immat as-salihin afarti imaam iyo dadkii taabiciintii qasaskaasoo dhan waa inaad ilmaha aad u ilaalisaa tasaddaxaad talaga doonaya haddaad hooyo tahay inaad ilmaha aqligiisa iyo waxa maskaxdiisa galaya inaad ilaalisid culimadu maxay yiraahdaan culimadu waxay yiraahdaan ilmuhu ilaa iyo intuu 6 jir noqonayo waa cabqari ilmo walo dhashaaba ilaa intuu 6 jir noqonayo waa cabqari waa genius طيب هذا كان ير maxaa loo kari waayay suurat al-idaa jaa baa ayaan dhaafine muxuu damiin u yahay ilmahani muxuu alif baad u baran waay ilmahani muxuu xisaabta u fahmi waay culimadu waxay yiraahdeen maskaxda ilmaha way furantay ilaa intuu 6 jir gaarayo marka haddaad ilmihii TV hor dhigtid ama telefoonka u dhiibtid telefoonkaad u dhiibtid aad raadid iskaga ciyaar video game maskaxdiisii waxaad ka buuxisay qurun iyo xashiish maskaxdiisii maad ilaalin amaanadii ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu dhiibana maad ilaalin hooyooyinku waxaa laga yaabaa inta ayadu ka shaqaynayso guriga ama ay saaxiibadeed la sheekaysanayso ama inay tahdo iska fadhiiso TV-ga u daarto waxay ilaawaysaa ilmahan maskaxdiisa waa inay ilaalisay waajibka ayada saaran weey wuxuu maqlayo iyo wuxuu arkayo iyo wuxuu cunayaba waxa ka mas'uula hooyada aabuhu intuu shaqada ku maqan yahay uu quudka ilmaha u soo dadaalayo mas'uuliyadu waxay saarantay hooyada bari anagu ku jira jaamacadda anagu ku jira ayaa sheekh wuxuu nooga sheekeeyay sheekh Fahd al-Hamoud baa la oran jiray xafidahullah wuxuu nooga sheekeeyay imaam al-Bukhari iyo caynkii wuxuu xafidi jiray يا إمام الشافعي يا عينك لها ميموري في يعني ذاكرة عجيبة وحنو يري كل جين قدرة والله هيدا لكن والله مثال ما يمان الله ما نكون لي مدنا جميل إمام البخاري لو من نقنكره إمام الشافعي لو من نقنكره وأنا ذي الامتحان يا أبو يري وحيري جلاسكي كوبكي لعياري تاريخ وورلد كاب ونوشيج فاينل سي يمي شو ده متباسو بودي هبلا واحد دولة ده هبل يا دولة ده هبلا يا يتمي جول إمسا جول بلو كربدي أنت صو جول أنت صو جول يا دليل هبل يا هبل بعد دليل وقت متبحث تاشجع وقت جول كلا دليل شيء معلم كمان يقول وحيد بلاك مسكحدني وحكب حسين قرن يا حشيش يا وح لا يسمي ولا يغني من جوع إمام البخاري يقول يا إمام الشافعي يا إمام أحمد بن حنبل يا إمام ابن تيمية يا علماء آخرينه مسكح دودا مركي يرايم اللي قبوا حيي وأنفع آخر دودا علم نافع الله من ربي هرسن شيخ الله من ربي هرسن طلبت أصدق هذا ما أفراد أن تعالى إن لقى حضله هذه التربية تاي إنه هو يدعو إلى التربية الخلقية أخلاق ilmaha waa in adabta la bara oo akhlaaq islaami oo wanaagsan la bara nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuu inoo sheegay dadka ugu fadhi dhow yawm al-qiyaamah ee asagu ugu jecel yahay dadka yawm al-qiyaamah wa ahasinukum akhlaqa wa dadka idinku akhlaaqda wanaagsan carruurtu markay yar yihiin akhlaaq bari kartaa markay waa weynaadaan ay noqdaan 15 jir ama 16 jir ama 17 jir akhlaaq lama bari karo waa too late raganimo la bari kara markaas oo abihiba loo dhiibaya laakiin inta ka horeysa akhlaaqda waxa baraysa waa hooyada
akhlaaqda laga doonay inay barto waa hooyada. ta ugu dambaysa nuqdada ugu dambaysa aan ku yara xada ilmahaagu waliba habluhu haddaad hooyo tahay sidaad adigu tahay ayuunbay hadhow noqonaysa. hadday inantaada yari ay kaa aragto inaad xishmaynaysid ninkaaga, aad u khidmadaynaysid oo aad ku dadaalaysid sacaadadiisa oo codkaad ilaalinaysid, sidaas si leeg ayaa dhow ninkeeda loo dhaqmaysaa. sheekey aan beri meel ka sheekeeyey, waxaa maraykankaanu joognay, waxaa isguursaday nin madow oo soo muslimay ayaa wuxuu guursaday gabadh madow oo soo muslimta masaajidka iyaga joogta. iyaduna waa maraykankaanu joognaa. ninkan madoobi muu arag gabadh madow sida ugu shaqaysa, wuu ii yimi wuxuu yidhi waniyo gabadhii arrimo cajiib ay samaysaayo aanan aqoonine bal la hadal. saan maxay samaysaa? wuxuu yidhi markay guriga aan soo galo way albaabkay igu sugaysaa. waa gabadh madow oo muslimada oo soo muslimtay. madowga ceeb maaha, yani waa maraykankan uga jeeda, cadaanka iyo madow baa la kala yahay maraykanka. waa African American, waa gabadh wanaagsan soo muslimtay. wuxuu yidhi markaan soo galo maryaha iga qaadaa, waxbay siinaysaa cunto, way i dawakhisay. anna waxaan u bartayna madbaha cala dul u galo. gabadhii baan u yeedhay, heblaayo maxaa jira? waxay tidhi hooyaday waa gabadh ayaduna waxay tidhi oo gaalada markaanu yaryarayn, markuu aabbahay soo dhow yahay wakhtiga shaqada uu ka soo rawaxayo way noo meydhi jirtay. markaasay bajaamo qurux badan ayay noo gedin jirtay oo nadiifa, cadar bay nagu buufin jirtay. albaabka ayaan istaagi jirayo markuu aabba albaabka muftaaxa u geliyo hooya ka furi jirtay markiiba. judhi bay ka furaysaa. kursi bay halkan yaalla bay tidhi, tuwaale halkaasuu u saaran yahay ayadii. waxay tidhi markuu soo galo ayaanu ku cararaa aabbahay, waanu dhunkannaa. markaasay tidhaahdaa dusha kor haddaba. kursi bay ku fadhiisiisaa. waa gabadh gaalada markaa. kabahay ka bixisaa, maryihii bay ka bixisaa, koorarkiiyo wixii maryihii kale, tuwaalkii bay u dhiibtaa. orodoo soo maydho, maryihii waa u diyaar bay tidhi. miiskiio cashada taalo ayuu u yimaadaa. waxay tiri taan ka bartay hooyaday ayaan maanta ninkay kula dhaqmaa, ee wuu yaaban yahay, asaguu naxsan yahayba. iminka nin Soomaaliyeed oo weliba dadka qurbaha jooga odhanaya gabadhayda caynkaasay ii samaysaa, xaaskayga caynkaasay ii samaysaa. dee horta ma jiro. hadday ay ku idhaahdo caynkaa ay samaysa, oo maadaa ilaah, oo maadaa isoo korsaday, maadaan kuu shaqeeya, oo maadaa waar albaabka qabso. laakiin u fiirso, inantani hooyadeedoo gaalada ayay ka baratay caynka ninkeeda loo dhaqo oo loola macaamilo. inantaadaa yarra way ku eegaysaa. haddii laakiin markuu ninku albaabka ka soo galo aad ku qaylisid, waar kadabgoy, waar maxaa, waar ayaduna ninkeedu way ku qaylinaysaa. ayaan dhow inan yaro Canada joogta ayaa la guursaday, magaalo la dhahdo Edmonton bay. inantii waa la guursaday, nin baa guursaday ka yimid Soomaaliya. markuu guursaday ayaa habeenkii arooskiiba gurigiiba la keenay. subaxdii asaguna xusayda waad guursatay oo waa degtay, imakaa degtay. waa nin iska miskiin oo Soomaaliya, gabadhuna waxaa ku dhalatay Canada. subaxdii baa la soo kacay, madbakhay gashay, si yar caani yar bas kusoo shubatay, miiskay soo fadhiis ka cuntay. markaasuu yidhi quraacdi meeday? say tii oh I'm sorry, halkaasay taallaa siryalka caanida talaagada ku jiraan, soo qaado bay ku tiri. naxdinta. markaasuu yidhi annaka dumarku yani ninka way u khidmadeeyaan. waxay tidhi hooyadii aabbahay weligii umay khidmadaynin. are you better than my father? aabbahay miyaad ka wanaagsantay bay tihi. waryaha aabbahay miyaad ka fiicantay? marka ilmaha inantaadan yari way ku eegaysaa. marka bar akhlaaqda الإسلامية. وجزاكم الله خير. أفر مرة زيادة كدر صدي رالي ما سكن نقول كرتان. سبحان الله سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله.